10 faa'iido ku cun tufaaxa. tufaaxa waxa uu ka mid yahay miraha la cuno waxaana taariikhda bilowga helistiisa lagu sheegay in laga helay bartamaha qaaradda Aasiya oo dhul qabooba ah. warbixin la sameeyay sanadkii 2014 iibka miraha tufaaxa waxa la gaarsiiyay 84.6 milyan oo tan. dadka Shiinaha ayaa iibsaday boqolkiiba 48 sida daraasada ku cad. 10 qodob ayaa laga faa'iidaa tufaaxa cunisiisa. qodobka koowaad, waxaa laga helaa quudin dabiici ah isaga oo kordhinaya fitamiinada jirka aadanaha u baahan yahay sida fitamiin A, fitamiin E, fitamiin B1, fitamiin B2 iyo fitamiin B6. qodobka labaad, waxa uu hoos u dhigaa miisaanka xad-dhaafka ah ee kora jirka aadanaha. sida ku cad daraasad la sameeyey, haweenka ayaa miisaankooda aad u kordha. miisaanka xad-dhaafkana waxa uu tufaaxa cunistiisa ka saacidaa ama ka kaalmeeyaa in uu ka rido dhowr kiilo haddii ay joogteeyaan 10 toddobaad. qodobka saddexaad, waxa uu wanaagsan yahay wadnaha qofka sida in uu yareeyo garaaca xad-dhaafka ee sababi kara geeri degdeg ah. boqolkiiba 20 tufaaxa ayaa hoos u dhiga cadaadiska xad-dhaafka ee ku dhaca wadnaha qofka. taas marka dambena waxay sababtaa in uu gabo shaqada ama istaago, sidaasina uu qofka kula kulmo geeri degdeg ah. qodobka afaraad, jirka waxa uu kala dagaalamaa waxyaabaha halista ku ah sida cudurka macaanka ama sokorta. cudurka macaanka ama sokorta ayaa halis ku ah koriimada jirka aadanaha. qofka cudurkaan uu ku dhaco ayaa dhumiya miisaanka jirkiisa. warbixintan waxaa lagu sheegay in tufaaxa cunistiisa oo la joogteeyo uu jirka ku heli karo difaaca, meeshana uu ka saari karo isku dheelitirnaan la'aanta jirka ee sababta cudurka macaanka ama sokorta. qodobka shanaad, waxa uu awood firfircoon siiyaa jirka qofka. waxa uuna sahlaa in aan qofka cuno aan u dusin ama u gudbin waxyaabaha ilma aragtada ee loo yaqaan bakteeriyada. bakteeriyada waa halista ugu weyn ee jirka noolaha weerarta, waxaana boqolkiiba 99 adag in lagu arko indhaha aadanaha. waana tan sababtay in loo hindiso ama la sameeyo qalabka weyneeyaha ah ee loo yaqaan shaybaarka si loogu arko. marka jirka aadanaha gasho, bakteeriyada waxa ay dib ugu soo laabataa ama ugu soo labakacleedaa qofka aadanaha iyadoo xanuun ahaan qofka u qabato. qodobka 6aad, qofka waxa uu miisaan wanaagsan u yeelaa jirkiisa. tufaaxa ayaa la sheegaa in uu ka hortago cudurka halista ah ee kansarka. daraasaadyo kala duwan oo la sameeyey waxaa lagu ogaaday in cunista miraha tufaaxa ay ka hortagaan cudurka kansarka oo dunida u raadinaysa daawo rasmi ah oo xal laga dhigi karo. qodobka 7aad, tufaaxa ayaa sabab u noqda in uu jirka aadanaha kala dagaalamo neefta ama qaaxada oo waxyeelaysa qofka qaba ama cudurka wasiibo. cudurkan ayaa qofka ugu dhaca samabada. waxaa ku adkaada qaadashada neefta loo yaqaano oksijiinka iyo soo tuurista neefta loo yaqaano kaarboonka oo jirka bini'aadanka soo tuuro. waana xasaasiyad sida caarada oo kale ah. waxay wasaqaysaa tubooyinka neefta, taas oo keenta in ay yaraato hawada qofka uu qaadanayo iyo tan uu jirkiisa ka soo tufaya. marka ugu dambeysana qofka waxaa ku xirma naqaska ama waxa uu awoodi waayaa in uu neefsado. 8, waxa uu awood wanaagsan siiyaa lafaha qofka. lafaha aadanaha ayaa isku haya jirka. xanuunada ku dhaca ayaa sababa in qofka uu waayo awoodda uu ku dhaqdhaqaaqo tolmoonida ama taagnaanta qofka. lafaha oo awood gaba waxa ay sababaan in qofka uu sariir ka ururo maadaama isku xirka wada shaqaynta jirka uu gabay. 9, tufaax ayaa ka hortaga xanuunka ku dhaca caloosha aadanaha. cudurrada ku dhaca caloosha aadanaha ayaa keena in qofka muddo uu la xanuunsado nabar ka qabta caloosha, waxaana daraasadan lagu sheegay in qofka joogteeya cunista tufaaxa inuu ka badqabo ama ka badbaadayo xanuunka. qodobka 10aad, waxa uu ka ilaaliyaa maskaxda in ay duqowdo. maskaxda aadanaha waa tan wax kala saarta, waana midda dareenka gudbisa. xanuunka ugu weyn asiibo ama ku dhaco waa inuu qofka garashada ka tago. cudurka ku dhaca ama midka uu gacantiisa ku keensado aadanaha ayaa sababa in ogaalka qofka uu ka tago.
isticmaalka ama cunista tufaaxa ayaa lagu sheegay inay ka hortagto xusuus la'aanta, maskax xanuunka iyo dhammaan cudurrada maskaxda ku dhaca. gunaanadkii, ma ku haminaysaa in aad bilowdo cunista tufaaxa si aad uga hortagto 10kan qodob?